saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda caalamka. barnaamijkan qodobada aan uga hadli doono waxaa ka mid ah ciidanka cirka ee dalka Ukraine ayaa soo riday diyaarad nooca Su-35 oo ka mid ah diyaaradaha uu ku faano wadanka Ruushka. maxaa ka soo kordhay weerarkii maanta lagu qaaday caasimadda wadanka Ruushka ee Moscow ee xiray laba ka mid ah garoomada waaweyn ee diyaaradaha ee wadankaasi ku yaala. waxaan kaloo barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa sirdoonka dalka Iran oo helay in Israel ay hadda askareen xoogan ay wado isla markaana Iran ay doonayso in ay weerar ay ku qaado dhawaan xarumaha nuclearka ee Israel. waxaan kaloo ka hadli doonaa Iran iyo Ruushka oo nidaam difaac hawo iyo hub culus ka soo wada iibsanaya wadanka Shiinaha, iyo Trump oo la ogaaday inuu qorsheynayo in diyaaradaha F-35 uu ka iibiyo dagaalyahanada Kurdiyiinta ee ka soo horjeeda wadanka Turkiga. halkee buu marayaa heshiiskii Turkiga iyo sidoo kale Mareykanka ee diyaaradaha F-35 looga iibinayay ee wadanka Turkiga, iyo nidaamka difaaca hawada ee Ruushka uu siiyay ama uu ka iibiyay wadanka Turkiga oo dabcan ka careysiiyay Trump iyo maamulkiisa. weerarkii lagu qaaday kaabiyaasha isgaarsiinta ee Sweden ee sirdoonka wadanka Ruushka ay geysteen, iyo waxaan kaloo aynu ka hadli doonaa macluumaad weyn oo ku saabsan nidaamka difaaca hawada ee S-400 ee Ruushka uu leeyahay oo wadanka Yemen, waqooyiga Kuuriya iyo Iran ee la geynayo dhawaan, arrintan oo dagaalkii saddexaad ee adduunka soo dedejin karta. bal marka hore barnaamijkeena aynu ku bilowno sirdoonka wadanka Ukraine ayaa sheegay in ciidanka cirka ee dalkaasi Ukraine ay soo rideen shalay subaxnimadii mid ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee wadankan Ruushka uu leeyahay, gaar ahaan nooca loo yaqaano Su-35. natiijada howlgal guuleystay oo ciidanka cirka ay fuliyeen oo ka dhacay gobolka Kuriski la yiraahdo ayaa diyaaradaasi lagu soo riday, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay baraha Telegramka. diyaaradan Su-35 la yiraahdo waxaa loo nashqadeeyay si casri ah, waana mid ka mid ah diyaaradihii uu ku faanayay Mareykanka, taas oo dabcan wax badan ka duwan marka loo fiiriyo diyaaradaha Mareykanka iyo reer galbeedku ay soo saareen. waa diyaarad bartilmaameedyada dhulka iyo badda si guule loogu tijaabiyey, isla markaana si wanaagsan ee uga soo baxday tijaabooyinkaasi. diyaaradan waa diyaarad dagaalyahanad ah oo isla markaana leh 2 matoor iyo 1 kursi, waxaana ay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ee generationada ugu dambeeya ee xagga tiknoolajiyadda. bishii March 2023 warbixin ayaa faafisay in diyaaradan Su-35 la yiraahdo oo kale lagu soo riday badda madow, sida laga soo xigtay ilo wareedyo warbaahinta gudaha wadanka Ukraine. hay-adaha ammaanka ee wadanka Ukraine ayaa toddobaadkii hore weerar weyn waxay ku qaadeen ilaa iyo 5 garoomood oo ku yaala caasimadda Ruushka ee Moscow iyo guud ahaan wadankaasi. 41 diyaaradood oo militariga Ruushku ay leeyihiin ayaa la burburiyay, waxyeelo qaarkood loo geystay, waxaana lagu burburiyay weerar muddo sanad ah la soo diyaarinayay oo diyaaradaha droonka loo adeegsaday. diyaaradihii fadhiyay garoomadii la weeraray waxaa dabcan ka mid ah diyaaradda Tu-95, Tu-22 iyo diyaaradaha cambaara hubka nuclearka ee casriga ah ee dalkan ee Ruushka uu soo saaro, oo dabcan dal kale oo adduunka ah aanu haysan. waxaa la leeyahay diyaaradahaasi in ay qaarkood ay dib u howlgalaan ayaa adag, halka qaarkoodna ay adag tahay in dib ay u farsamayso dowladda Ruushka. haddaba dhawaan kulan khadka telefoonka uu ku dhex maray madaxweynaha Ruushka iyo dhigiisa wadanka ee Mareykanka ayaa Putin wuxuu ku sheegay una cadeeyay Mareykanka in jawaab uu ka bixin doono weerarkaasi diyaaradihiisa lagu burburiyay. nooca jawaab ma uusan faahfaahin, laakiin waxaa la leeyahay jawaabtaasi ayaa waxa ay wadno kurkur ugu riday dalalkan NATO iyo sidoo kale Mareykanka, oo la leeyahay maxay noqon kartaa jawaabtan uu bixin doono ee dalka Ruushka. waayahay bal markan Iran, hay-adda sirdoonka ee dalka Iran ee Mois la yiraahdo ayaa daaha ka qaaday dukumentiyo la xiriiro mashruuca nuclearka ee Israel iyo xarumaha ay leeyihiin, iyo sidoo kale in Israel ay hadda qorsheynayso amaba ay askareynayso dad fara badan oo reer Israel ah. arrintan ayaa waxa ay daaha sidoo kale ay ku rogtay in Israel ay isku diyaarinayso weerar dhawaan dhex mari doona labadan dhinac, waa Iran iyo sidoo kale Israel. haddaba Mareykanka ayaa hadda wadahadal wuxuu doonayaa inuu la galo Iran oo ku saabsan barnaamijkeeda nuclearka, maadaama ay soo baxeen in maadada uraniumta ee dalkan Iran uu haysto ay dabcan awood u leedahay inay soo saarto 9 ka mid ah madaxyada nuclearka awoodna u leeyihiin inay dhawaan banaanka ay soo dhigaan. taas ayaa keenaysa in Israel iyo Mareykanka ay hadda u tafaxiitaan sidii ay u weerari lahaayeen dalkan Iran.
ayaa laftirkeeda waxaa la leeyahay meel iskama fadhido oo waxay isku diyaarinaysaa inay duqeyn hordhac ah ay ku qaado goobaha nuclearka ee Israel. Dokumentigan oo faahfaahin ka bixinaya xaaladahan waxa uu sidoo kale uu sheegayaa in Iran ay doonayso inay ku horumarto in ay weerarto goobaha nuclearka ee Israel. haddaba dhowaan ayaa sirdoonka wadanka Iran waxa uu sheegay in ay u xaqiijiyeen ciidanka hawada iyo wasaaradda difaacaba in ay hawada ay ka difaaci karaan wax walba awoodna ay u leeyihiin inay ka hortagaan madaafiic kasta oo uga timaada Israel ama Mareykanka. inkastoo hadda ay soo dhawaatay baa la leeyahay xilliga uu Mareykanka uu doonayo in howlgal military uu ku qaado wadankan, laakiin Israel aba doonaysa inay ku hormarto. haddaba maxaa xaqiijinaya marka in Mareykanka iyo Israel ay doonayaan inay Iran weeraraan? taliska dhexe ee Mareykanka ee bariga dhexe u qaabilsan ayaa toddobaadkan waxa loo soo magacaabay taliye cusub. taliyahan laakiin wuxuu sugayaa in sanadka Mareykanka uu codka kalsoonida uu siiyo si uu u yimaado bariga dhexe, dabcan uu howlgalkiisa u wato. waxaa la leeyahay marka sarkaalkan waa ninkii weerari lahaa dalka Iran dabcan diyaar bay tahay oo waxay leedahay cid aynu u joojinayno ma jirto oo waan difaacaynaa qadiyadda iyo madax banaanida iyo wax soo saarka wadankeena. waynu arki doonaa waxa ku soo kordha. dhinaca kale marka wadanka Ruushka ayaa waxa la leeyahay waxa uu hadda uu doonayaa inuu helo nidaamka difaaca hawada ee wadankan Shiinaha uu soo saaro ee la yiraahdo HonGi 19 ama HQ19. waxaana la leeyahay waana hubkii ugu horeeyay oo casri ah oo dabcan Shiinaha uu soo saaro oo nidaam difaac hawa ah oo dabcan horeyna loo tijaabiyay. hadda marka wuxuu doonayaa Ruushka inuu soo iibsado si uu u waardiyeeyo ama uga difaaco dadkiisa, kaabiyaashiisa dhaqaalaha, sifaynta iyo hubka hawada ee wadankan Ruushka. dhawaanahan waxa uu la kulmayay weeraro diyaaradaha daroonka ay geysanayeen. dabcan inkastoo uu awood ahaan Ruushka uu ku filan yahay diyaaradahaasi, haddana ishubeyntan iyo hubkan meelaha kala duwan laga keenayo ee Ruushka dabcan uu diyaarsanayo ayaa waxay yihiin kuwo daaha ka rogaya xaaladdu in aanay wanaagsaneyn. taas waxaa si xaqiijinaya Iran ayaa hub casri ah ka dalbatay wadanka Shiinaha oo ay doonaysaa in ay ka iibsato. saddexdan wadan Ruushka, Iran iyo Shiinaha aad bay isugu xiran yihiin, siyaasad ahaanna way isku dhow yihiin, waxay ka midaysan yihiin dagaalka reer galbeedka iyo gaashaanbuurta NATO. bal markan aynu u galno Turkiga iyo Trump ayaa laga yaabaa inuu dhowaan uu ogolaado heshiis diyaaradaha F-35 lagu siinayo dagaalyahanada Kurdiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda Turkiga. dhowaan ayaa waxaa soo baxay in Turkiga iyo Trump ay ku heshiiyeen in ay horey u sii wadi doonaan heshiiska diyaaradaha F-35 iyo F-22 looga iibinayo wadanka Turkiga. laakiin nidaamka difaaca hawada ee dalka Ruushka ee S-400 ee Turkiga dhowaan uu soo iibsaday ayaa dhibaato waxa ay ku noqotay heshiiskan difaaca Turkiga iyo Mareykanka dhexmari lahaa. haddaba waxaa la sheegayaa in dalka Turkiga cadowga weyn uu u arko Kurdiyiinta uu hadda mar kale uu doonayo inuu abuuro ciidan weyn oo ciidanka cirka ee Kurdish Air Force la yiraahdo oo dabcan doonaya in ay gacanta ay ka helayaan Mareykanka iyo Trump ay kor ay u qaado, isla markaana ay hadda ay helaan diyaaradaha F-35 ee dabcan Mareykanka uu soo saaro mustaqbalka. inkasta oo dad badani ay aaminsan yihiin in xitaa Israel iyo Mareykanka aanay heshiis la geli karin Kurdiyiintan haddii ay rabaan in xiriirka Mareykanka iyo Israel iyo Turkiga uu sii wanaagsanaado. haddana waxaa la leeyahay Kurdiyiintan ayaga ayaa doonaya in ay marka heshiiskan Trump iyo sidoo kale Turkiga uu xumaado inay ka faa'iideystaan oo diyaaradahaasi F-35 ay helaan. arrintan dabcan waxa ay cawaaqib weyn ay u keeni kartaa xiriirka Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga. kooxdan dagaalyahanada Kurdiyiinta ah ee dabcan ka taliyo gobolo badan oo ku yaala Ciraaq iyo sidoo kale meelo kamid ah wadanka Suuriya ayaa waxa loo arkaa laftirkooda awood weyn oo hadda gobolkaasi ka soo baxaya. haddaba marka waa maxay sababta Trump uu u qorsheynayo inuu ka iibiyo diyaaradahan F-35 ee Mareykanka uu soo saaro ciidamadan cirka ee Kurdiyiinta sanadkan 2025? inkastoo Mareykanka uu taariikh ahaan uu noocyo kala duwan yahay oo taageero military oo xoogan uu u fidiyay
xoogagan kurdiyiinta ee Ciraaq iyo Suuriya ku sugan haddana waxaa muhiim ah in la cadeeyo in Mareykanka aanu si toos ah uusan ugu soo dirin diyaarado hadda ka hor kooxdan kurdiyiinta laakiin taageero military oo xoogan ayuu siiyaa oo la og yahay Turkigana ay ka warqabaan sidaa darteed iyadoo Mareykanka uu saaxiib muhiim ah oo la ahaa xoogaga kurdiyiinta haddana taageeradiisu waxa ay si guud ay diiradda u saari jirtay qalabaynta kooxdan loo sameynayo tababarka la siinayo awoodda hawada oo dabcan laga taageerayo iyo duqeymaha dabcan meelaha qaar ee looga fulinayo sababtoo ah waxa loo sheegay in fallaagada Suuriya ee fadhigooda uu yahay wadankan gudihiisa inay laftirkooda ay dhibaato weyn ay ku yihiin xaaladda gobolka iyo sidoo kale danaha Turkiga inkastoo hadda Turkiga uu guud ahaan uu taageeray ciidamadii Suuriya ee la wareegay wadankaasi waxa la leeyahay cadaadis weyn waxay saartay marka kooxdan iyo awoodeeda maadaama dawladda Suuriya ay la wareegtay Turkigana uu taageerayo waxay dareemayaan marka cabsi weyn oo ah mustaqbalkooda kooxdan marka waxa la isweydiinayaa oo dadka qaar laga yaabaa oo dhageystayaasheena ama dadka nagu xiran ay isweydiinayaan horta ma leeyihiin ciidan cir ma leeyihiin diyaarado iyo sidoo kale agab kale kooxdan waxay leeyihiin ciidamada cirka waxaana loo yaqaanaa ciidamada cirka ee Kurdistan ama KAF waxay leeyihiin diyaarado nooca dagaalka oo 15 xaba ay leeyihiin sidoo kale waxay leeyihiin 7 diyaaradood oo nooca loo yaqaano helicopterka ama kuwa qumaatig u kaca waxa ku jira F-16 ku jira diyaaradaha ay haystaan oo warshadaha dabcan waaweyn ay soo saareen reer galbeedka Turkiga ayaa waxa uu arkaa marka kooxdan maadaama wadanka Suuriya hadda gacanta lagu qabtay in gobolkeedii uu sii dhici doono Trump ayaa qorsheynaya marka in uu mataqaana rakaato uu ku qabsado wadamada Turkiga Suuriya Israel iyo Iran marka loo fiiriyo danaha Mareykanka ee bariga dhexe oo ka leeyahay dabcan Israel iyo Mareykanka dad badan oo arkay inay isku dhow yihiin siyaasad ahaan iyo waliba xiriirada iyo heshiisyada ka dhaxeeya way yihiin laakiin danaha marka la leeyahay bariga dhexe Mareykanka dan gaar u leeyahay Iran wuxuu doonayaa in xaalad qalalaasa ay gasho Suuriyana dabcan gacanta buu ku hayaa Turkigana waa wadan warshadihiisa iyo waliba siyaasadiisu ay dabcan hadda banaanka soo baxayso Mareykanka marka waxa uu ku haystaa hantidiisa hawada ee gobolka waxay yaalaan inteeda badan bariga dhexe taas oo loo arka marka in Mareykanka xulafadiisa reer galbeedka uu doonayo inuu hadda mudnaanta koowaad uu ka siiyo tan bariga dhexe oo dabcan Carabaha ay ku jiraan waa tii heshiisyo waaweyn oo balaayiin dollar ah dhawaan uu 3 wadan oo Carabeed uu la galay waxaana dalalkaas uu ka iibinayaa hubkiisa faraha badan ee Mareykanka uu soo saaro Mareykanka kuma qalabeynayo ciidamada Kurdiyiinta kuma qalabeynin diyaarado waa kooxdan Kurdiyiinta kuma qalabeynin diyaarado iyo qalab u dhigma F-35 waagi hore laakiin hadda waxa la leeyahay arintan waxay la mid noqon doontaa inuu doonayo in Turkiga uu dabcan uu yiraahdo haddii aad danahaasi fulin weydid kooxdan ayaanu soo hubeynaynaa tani marka waxay u badan tahay in ay sabab u noqon doonto in khilaafka Trump iyo sidoo kale wadankan Turkiga uu xumaan doono hogaamiyaha cusub ee dalkan Suuriya ayaa hore u sheegay in dalkiisa uu ka sifeyn doono wax kasta oo ka soo horjeeda dawladda oo dabcan Kurdiyiinta laftirkeeda ay kamid tahay taas oo cabsi weyn dabcan gelisay kooxdan iyo dabcan Mareykanka ugu dambeyntii marka bal aynu eegno waxa ka soo kordhay in Ruushka uu sheego in nidaamkiisa difaaca hawada ee S-400 yiraahdo uu geyn doono wadanka Yemen wadanka North Korea ama waqooyiga Korea iyo wadanka Iran si danaha Israel iyo sidoo kale Mareykanka uu uga soo horjeesto nidaamkan difaaca hawada ee casriga ah dhawaan dalkan Ruushka wuxuu diiday in laga iibiyo dalal kale oo waaweyn laakiin taa bedelkeeda hadda isaga u daadgureynaya 3 wadan waxa uu doonayaa in danihiisa badda cas uu kor u qaado isla markaana uu weeqo awoodda Mareykanka ogow dhawaan Mareykanka wuxuu ka soo daalay duqeyntii Xuutiyiinta uu ku hayay waxa uu u bedeshay inuu heshiis uu la galo dawladda waa kooxda Xuutiyiinta ee wadanka Yemen iyaguna way joojiyeen duqeynihii ay ku hayeen maraakiibta badda cas ee Mareykanka uu leeyahay iyagana duqeyntii ayaa laga joojiyay marka arrimahaas marka waxay keenayaan in hadda Ruushka laftirkiisa uu garoonka uu soo galo bariga dhexe gaar ahaan wuxuu doonayaa marka in nidaamka difaaca hawada ee casriga ah uu farta ka saaro ciidanka dawladda wadanka Yemen la difaaco wadankaasi
danihiisana dabcan uu halkaasi ka waardiyeysto oo haddii dagaalka saddexaad ee adduunka uu dhacana badda cas dabcan waa meesha koowaad ee lagu dagaalami doono waa albaab muhiim ah oo dabcan bariga dhexe iyo dhammaan Afrika oo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Masar ay ku jirto waa meeshii xaaladooda lagala socon lahaa marka nidaamkan difaaca hawada in hadda ciidamada dawladda wadanka Yemen la siiyo aad bay waxay kor ugu qaadaysaa tayada iyo awoodda cirka ee wadanka Yemen iyadana dhinaca kale ee dabcan Ruushka iyo danihiisii bay ka shaqeyn doontaa marka arrimahaasi danta uu ka leeyahay wadanka Yemen waa taas tan waqooyiga Kuuriya waa iska cadaho waqooyiga Kuuriya dabcan Mareykanka aad bay uga soo horjeedaan in halkaas la geeyana xiriirka labadan wadan ay kor u qaadaysaa ugu sidoo kale wadanka Ukraine waxa ku sugan ciidamo North Korea ka yimid oo dabcan la ka barbar dagaalamaya kuwa dawladda wadanka Ruushka waayahay Iiraanna way bacadaho Ruushka iyo Iiraan waxa ka dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan haddana marka waxaa la doonayaa in nidaamka difaaca hawada ee la keenayo wadankan Iiraan ay Iiraan danaheedii iyo tii ka soo horjeeday Israa'iil ee tii Mareykanka intaba Ruushka inuu lug ku yeesho oo dabcan uu kor u qaado maxaa ka soo kordhay Sweden aynu eegno sidaan barnaamijkeenii koowaad ee maanta aynu ku soo sheegnay sirdoonka wadanka Ruushka ayaa weeraray ilaa iyo 33 taawaro isgaarsiineed oo ku yaala ee wadanka Sweden waxay curyaamiyeen sidoo kale isgaarsiintii qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ee wadankaasi waxa la weeraray marka 30 taawar oo kuwa isgaarsiinta ah oo ku yaala wadanka Sweden sirdoonka wadankaasi Sweden waxay yiraahdeen weerarkaasi waxa ka dambeeya sirdoonka wadanka in Ruushka ka dambeeya qof la aqoonsaday oo weerarkaasi ku lug lahaa ayay booliisku iyo sirdoonka hadda si gaar ah ay isha ugu hayaan kaasoo ku dhumaalaysanaya wali dalkaasi Sweden gudihiisa meelaha la weeraray marka waxa kamid ah sida baariyaashu ay leeyihiin wado highway ah oo weyn oo dabcan kaabiyaasha dhaqaalaha iyo isgaarsiinta ay ku teedsan yihiin oo la yiraahdo E22 sidoo kale waxa loo yaqaanaa wadada Europe waxa qayb kamid ah ay isku xirtaa gaadiidka wadooyinka ee ku dhirsan ama dhirka wadadaas waxay gaaraysaa 300 waa 3300 mayl waxay isku xirtaa marka UK dhinaca galbeedka iyo Ruushka dhinaceeda bari ay isku xirtaa waa wado muhiim ah oo dabcan la weeraray marka waxa shakiga weyn keenaya waxay tahay oo sirdoonka wadanka Ruushka looga shakinayo weerarkaasi sirdoonkii fuliyay dabcan waxba meesha kama aysan qaadan kaliya kaabiyaashii isgaarsiinta ee Sweden ayay jarjareen fiilooyinkii ayay burburiyeen waxa loo yaqaan fiyuusyadiina iyo qalabkii muhiimka ahna way jarjareen taasoo dabcan keentay in wadadaas iyo wixii ku hareeraysanaa isgaarsiintoodii ay marqura ay mugdi ay noqotay oo ay go'day marka sanadkii 2016 ayay soo xusuusisay guud ahaan dawladda iyo shacabkaasi oo weerar sidan oo kala ah ee lagu qaaday ee wadankan Sweden markaasi weerarkaasi waxa lagu qaaday kaabiyaal isgaarsiineed oo ku yaala koonfur galbeed ee wadanka Sweden si ula kac ah ayaa loo jarjaray waxaana ay arintaasi saameysay 85,000 oo qoys kuwaasoo dabcan waayay internetkii bay waayeen waxay waayeen sidoo kale isgaarsiintii kale ee dawladda kala dhaxaysay iyo adeegyadii telefishinada ayay waayeen marka arintaasi soo xusuusisay dawladda iyo sidoo kale shacabka guud ee reer Sweden waliba degan ama ku nool hareeraha ee wadadan iyo meelaha kale ee sirdoonka wadanka Ruushka ay beegsadeen dacwad ogaha wadanka Sweden Michael Stein oo hogaaminaya marka baaritaankan booliiska ayaa u sheegay warbaahinta in baaritaanku uu socdo haddana waxa la filayaa buu yiri in dhawaan la soo gabagabeeyo baaritaankanna wixii ku soo kordhay wuxuu yiri goordhow ayay doonayaan inay la wadaagaan guud ahaan warbaahinta gudaha Sweden sirdoonka waliba gaashaanbuurta NATO iyo dalalkan NATO maadaama Sweden ay xubin ka tahay NATO ayaa laftirkooda baaritaanka ku jira oo wax ka baaraya dawladda Ruushka wali kama aanay hadlin arintan wax faahfaahinna kama aanay bixinin sida ay wax u jiraanna wali ma aanay sheegin ugu dambeyntii warka weyn ee Yurub iyo Ruushka markii ugu horeysay markab nooca biyaha hoos qoosa oo submarine loo yaqaano oo qaada hubka nuclearka ayaa lagu arkay meel u dhow magaalada London ee caasimada wadanka Ingiriiska ama Britain arintan waxay keentay marka walwal weyn oo dabcan ay
dareemaan dadka u dhashay dalkan Britain. dhawaan waxaa soo baxday in dowladda Britain ay doonayso inay dadka da'dooda 18 sano ka koraysa inay iska diiwaangeliyeen xarumaha ciidamada isla markaana ay u diyaar garoobaan waddanka inay difaacaan. taasa marka waxay keentay dadku inay walwal iyo aragti ay ka qabaan waddanka ma dagaal buu gali doonaa ma Russia ayaa soo weerari doona. iyadoo arrimahaas ay jirto ayaa 6dii bishan markii ugu horeysay markabkan qaada hubka nuclear-ka ayaa lagu arkay meel u dhow marka magaaladaasi London. markabkan waa kan biyaha hoos quusa ee submarine-ka loo yaqaano. waxa weeye halista weyn ee hubka nuclear-ka xambaarana waa uu yahay. dowladda Ruushka wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo tan difaaca weli kama aanay hadlin markabkan hubka nuclear-ka qaada ee halkaasi meel London u dhow biyaheeda lagu arkay. laakiin horey ayaa safiirka dowladda Ruushka u jooga magaalada London waxa uu sheegay inaanay qorshuhu ahayn ama aysan wax dana ka lahayn inay weeraraan waddankan Ingiriiska ama magaaladan London. sidaas la mid ah waxa uu sheegay inaysan doonaynin inay weeraraan waddanka Jarmalka oo isna Jarmalka markii ugu horeysay taariikhda ayaa meel ka baxsan waddankaasi Jarmalka ciidamadiisu ay saldhig joogto ay ku yeeshaan waana waddanka Lithuania oo Yurub dabcan ka tirsan. marka falanqeeyaasha maanta gudaha waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London warbaahinta ayaa falanqeynaya arrintan. waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah in dalkan xubinta ka gaashaanbuurta NATO iyo Ruushka uu mardhow dagaalkooda uu bilaaban doono. dhawaan ayaa Chancellor-ka ama hogaamiyaha waddanka Jarmalka waxa uu sheegay marka la gaaro 2029 inay tahay waqtiga Ruushka uu doonayo in waddanka Jarmalka uu soo weeraro. taasoo dabcan keentay in ciidamada dowladda Jarmalka loogu baaqo in nidaamkooda difaaca hawada ay adkeeyaan isla markaana keed fara badan oo ciidamo ah iyo hub ah ay sii diyaarsadaan si ay dabcan uga hortagaan haddii dagaal uu soo food saaro waddankaasi Jarmalka. maantana waa tan hubka nuclear-ka maraakiibtan qaada ee badda hoostooda mara la leeyahay waa lagu arkay meel u dhow London. dowladdu weli si cad uguma hadlin Ruushkana kama aanay hadlin laakiin si guudba waayadanba aad baa loo hadalhayay arrimahan ku saabsan in Ruushka uu doonayo in wadamadan la yiraahdo Jarmalka iyo sidoo kale Ingiriiska uu doonayo in uu weeraro. daawadayaal macluumaadkan ayaa ugu dambeeyay dhacdooyinka waaweyn ee maanta ka taagan caalamka. kuwan iyo kuwa kale ayaanu barnaamijkeena alaaba aanu ku falanqeynaa oo aan kusoo gudbinaa. barnaamijkan mid ka xiga hadduu ilaah yiraahdo waxaan uga hadli doonaa 5 calaamadood oo waaweyn oo muujinaya in dagaalka Iran iyo sidoo kale waddanka la yiraahdo waa dalka Iran iyo sidoo kale maamulka Israa'iil dhawaan uu bilaaban doono. calaamadahaasi oo dabcan hadalhayntooduba ay sii bilaabatay ayaanu ku sharxi doonaa barnaamijkan mid ka xiga. hadda barnaamijkan qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa caalamka dhacdooyinka ka taagan. kuwan iyo kuwa kale si aad u hesho fadlan subscribe saaro channelkan oo la soco si maalinle ah halkan barnaamijyo muhiim ah oo xaaladaha diblomaasiyadda iyo amniga adduunka ayaanu uga hadalnaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin subscribe saarta mahadsanid.